السلام عليكم waxaan ahay Ibrahim Adam soo dhawaada saaxiibayaal ma doonayo in aan waqti badan ka qaato sababtoo ah kulamo wadaagay xog aan meel ka soo akhriyay ama dhacday waxaan kula wadaagi doonaa wax aan anigu jeclaystay in aan idin la wadaago waxaan jeclahay in aan mar walba idin la wadaago wax kor u qaadayo aqoontaada iyo garaadkaaga oo aan anigu nafteeda la jeclaaday in aan idinkana idin la wadaago waan ku dhiiradaa muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa youtubero ama shakhsiyaad aad u baahan tahay in aad noloshaada ku soo darto 2024 si aad wax un uga faa'iido ama aqoon ama wax xog ah oo ka maqan waxaan aaminsanahay in maalin un aad ka faa'iidi doonto wax wanaagsan oo naftaada bedeli kara waxa la yiraahdaa mar walba waxa aad ku dhex jirtid oo aad naftaada ku hareeraysid ayaa noqotaa amba tahayba marka shakhsiyaadkana aan kula wadaagi doono waxaan rajeyn lahaa in aad saaxiib ka dhigato 2024 wad ku mahadsan tahay go'aankaaga wanaagsan ee aad ku furtay muuqaalkan oo aad ku dhiiratay in aad daawato fadlan kanaalka ku taageer inaad subscribe dhahdo iyo in aad ugu yaraan hal qof gaarsiiso kanaalka السلام عليكم مركله سو dhawaada saaxiibayaal muuqaalkan wuxuu iska noqon doonaa mid iska kooban waxaana si toos ah ugu gudageli doonaa mawduuceena maanta shakhsiga ugu horeeya waa shakhsi aad sharaf agteena ugu leh waa shakhsi cid kasta oo Soomaali ah ay taqaano ixtiraamna aan u hayno shakhsigaasi waa Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil in aad ku xirnaato oo aad dhageysato Sheekh Mustafa waxay ka dhigaysaa shakhsi adag kuna dhiiran mar walba nolosha Sheekh Mustafa wuxuu kala hadlayaa ama kugu dhiirigelinayaa waa shakhsi kula jecel guusha labada daarood aakhira iyo adduunba ilaahay sharfa sheekheena xageed ka heli kartaa marka Sheekh Mustafa kaliya YouTube-ka ku qor magaciisa waxaad arki doontaa boqolaal kanaal oo muuqaaladiisa soo geliya insha Allah qofka ugu horeeya aad doonaysid inaad ku xirnaato 2024 waa Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil qofka labaadna aan kula wadaagi doonana waa Yaasir Mukhtaar ama aad u taqaanaan dhiirigeliye Yaasir Mukhtaar sidoo kale waa walaal kula jecel guusha labada daarood waxaana aaminsanahay in aad wax un ka faa'iidi doonto haba ahaatee xasuusinta aakhiro 2024 saaxiib ka dhigo kanaalka dhiirigeliye ama walaalkeena Yaasir Mukhtaar halkan ayaan ka salaamayaa saaxiib qofka saddexaad ee kula wadaagayo wuxuu noqonayaa ogaansho ama Umar Inshaar kanaalka ogaansho xogaha aan ka diiwaan galiyay oo aan ka faa'iiday halkan kuma soo koobi karo balse waxaan adigana kugula talinayaa in 2024 aad ku soo darto noloshaada waxaan hubaa in aad maalin un ka faa'iideysan doonto siiba wiilasha haddii aad taqaani balse aadan daawan jirin muuqaaladiisa bal ka wardoon oo ila soo arag 2024 saaxiib la noqo kanaalka ogaansho shakhsiga afraad ee aan kula wadaagi doonana wuxuu noqonayaa aadan sahan ama kanaalka sahanka xogaha waa kanaalka ama shakhsiga kaliyeed ka faa'iideysan karto xogad diiran oo markaasi xog ogaalkaaga kor u qaadi karo marka haddii buug akhriska uu dhib kugu ahaa ila arag aadan sahan ama sahanka waxaan hubaa inaad xogo badan aad ka diiwaan gelin doonto midka shanaad ee aan kula wadaagi doonana wuxuu noqon doonaa Ayub Axmed midka kale waa ka daran yahay Ayub Axmed waa shakhsiga kaliya kula hadlaya si dhab ah kaana jafayo boorka iyo bushaarada ku saaran sidoo kale waan kugula talinayaa in aad 2024 saaxiib ka dhigato kanaalka Ayub Axmed waxaan hubaa inaad asagana wax un ka faa'iidi doonto 2024 halkan ayaan ka salaamayaa Mr. Ayub sidoo kale shakhsiga lixaad ee kula wadaagay waxay noqonaysaa kanaalkeenan IB Adam oo ah kan aad hadeertaanba adiga daawanayso waxaan ku soo gudbin doonaa mar walba wax garaadkaaga iyo maskaxdaada kor u qaadi doono insha Allah fadlan kanaalka ku taageer in aad subscribe dhahdo iskuna day in aad ugu yaraan hal qof gaarsiiso ama aad la wadaagto kanaalka shakhsiyaadkaas aan kula wadaagay waa sidii buugaag qoran oo aad akhrinayso oo kale xogaha iyo dhiirigelinta nafta ay kula wadaagayaan waxaan aaminsanahay in 2024 ay wax ka bedeli doonaan waana sababta aan ugu dhiiraday in aan kula wadaago waa waqtigii aad ka dhaxbixi lahayd malaayacniga naftaadana aad ka jar lahayd shakhsiyaadka soo gudbiya malaayacniga waxaan rajaynayaa in ay maalin un ku anfici doonaan xogaha ay soo gudbiyaan shakhsiyaadkaas horumari naftaada kana ka hurdada salaam calaykum